fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. asxaabta cashirkeena ugu horeeyo gudagaleena cashirkeena ugu horeeyo wuxuu ku saabsan yahay sida softwareka usoo kacsan lahayn. waxaa jirta meelo badan aan kasoo kici karno, laakiin meesha ugu fudud aan kasoo kici karno waxaa waaye iconka oo desktop kuu saaran inaa laba mar klik siisid. waa kana b3 complete. waxaa jira noocyo badan, laakiin midka aad isticmaalaysa ay ku xiran tahay. ana hadda b3 complete 2010 aan isticmaaloyaa. waxaa kaloo jiro waa kana noocyo kale oo ka dambeeyay, laakiin kana waxaa rabaa inaan ku baraatikeeyo aan ku tuso. marka laba mar klik aan siineynaa si uu noogu soo kaco. wuu soo kacay. meeshaan hadda u jeedno waxaa lahaa b3 start screen. waxyaaba badan aan ugu muuqdo sida hadda meesha ugu horeeya ku yaalo waxaa waa open an existing company. meeshan waxaa u talagalnay inaa isticmaalno markii aan rabno inaan furno company hore noogu shaqeynayo oo noo sameysnaay aan rabno inaa furno. sidoo kale meeshan waxaa ku taalan create new company. markaan rabno company cusub inaan abuurno meeshan daaqadan loogu talagalay. sidoo kale hoos hadaa fiirino waxaa meesha ku taala other tasks, shaqooyin kale. sida waxaa ugu horeeya explore a sample company. meeshan waxaa u talagalnay markaan rabno inaa company sample aan rabno oo koonadiis diyaarsan markii aan rabno inaan helno waxaa loogu talagalay inaan isticmaalno explore a sample company. sidoo kale kan ugu hooseeya meeshan waxaa ku taala converted from another accounting program. markaan rabno anagoo program kale isticmaalayna software kale isticmaalayna inaan kasoo guurno aan rabno b3 inaan usoo guurno. markii waxyaaba soo guurinayno intaa isticmaalayna converting. meeshan daaqada ugu hooseysa isticmaalayna. haddii meesha geeska fiirino kor file meesha qoran tahay keliga hadaa siino waxaa inoo soo baxayo waxyaabo qoraalo. kan ugu koreeya open company. open company wuxuu la mid yahay open an existing company. yani isku mid waaye haddaa inta ka gashid iyo haddaa inta ku dhufatid isku meeshi lee waa. sidoo kale meeshan waxaa ku yaala new company. new company iyo create a new company isku mid waa, ama halkaas gal ama inta gal isku mid waa. I think inaa fahanteen. sidoo kale meeshan waxaa ku taala options. options meeshan start with last opened company. waxaa jira marar qaar markii aa ku dhufatid meeshan markii aa bilaaw soo marayni markii aa laba mar klik siisid inaad rabtid inaad soo kicisid automatic ku keenayo meeshan ku keenayo wuxuu ku geynaa marar qaar waaye wuxuu ku geynaa company-ga oo furan oo shaqeynayo company-ga toos ku geynaa. sababtana waxaa meeshan aa tig saaran. meeshan hadday tig ku saaran tahay waxaa waaye daaqadan ku keenayo b3 start screen ku keenayo wuxuu ku geynaa company-ga shaqeynayo. marka mar walba waxaa ku khasban tahay daaqadan inaad tigta ka qaadid meeshan tigta inaad ka qaadid si oo meeshan ku keeno. cashirkeena ugu horeeyo intaas ku saabsan yahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.